kula wacno wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wararka ee dalbil qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka daacad u ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen oo weerar culus ku qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ee ku guuleystay in badan oo kamid ah magaalada Baydhabo ay si buuxda ula wareegaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Galmudug ayaa si buuxda u xaqiijinaya amniga magaalada Gaalkacyo iyagoo magaaladaasi si buuxda ula wareegay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Baydhabo ayaa ka hadlay dagaalkii saaka waxaana ay sheegeen in aan loo dul qaadan karin dagaal ka dhaca magaalada Baydhabo isla markaana loo baahan yahay in xal laga gaaro xiisadda gudaha Baydhabo dhinaca kale waxaa daawan doontaan xiisad culus oo markaasi weli ka dhex taagan madaxweynaha Soomaaliya iyo Siciid Cabdullaahi Dani oo ku aadan socdaalkiisa magaalada Gaalkacyo maxay tahay xiisadda faafahinta ayaad kaga boganeysaan soo dhawow qodobadaas ayaa daawan doontaa inta tabintan aynu ku guda jirno haddii tahay booqashadaadii ugu horreysayna kusoo biro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran ee markasta hela wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ku waramaya in ciidanka daacad u ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen isaga weerar culus ku qaadeen magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaas oo maalmo ka hor aadan madoobe hogaamiyaha Koonfur Galbeed uu sheegay in cabsi xoogan uu ka qabo magaalada Baydhabo inay isku weerar ku qaadaan ciidamada Laftigreen oo ay la wareegaan ciidanka Laftigreen ayaa inta badan waxay gacanta ku dhigeen guud ahaan magaalada Baydhabo iyagoo halkaas ka saaray ciidankii dowladda federaalka iyo kuwii daacadda u ahaa aadan madoobe waxayna ku guuleysteen ciidanka Laftigreen inay gaaraan bartamaha magaalada Baydhabo si gaar ah halka loo yaqaan Fariirdoodkii sidoo kale xerajaadka oo ah mid kamid ah baraha markaas ugu muhiimsan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada daacad u ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa waxaa markaas hogaaminayay saraakiisha ugu sareysay ciidanka Laftigreen oo ugu horeeyo ogaas Xasan afhayeenka garabka Laftigreen iyo wasiirka amniga ee taliyaha ciidanka booliiska gaarka waxaana dhamaantood ay sheegeen in howlgalkiisa ka guulo waaweyn ay ka gaareen in badan oo kamid ah magaalada Baydhabo ay si buuxda markaasi ula wareegeen dhinaca garabka aadan madoobe oo hadlay waxa ay sheegeen in ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Laftigreen ugu yeereen maleeshiyada halkaas ku dileen warbaahintan ay u soo bandhigi doonaan midadka askartii Laftigreen ee halkaas ku laayeen halka dhinaca Laftigreen ay sheegeen in askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka aadan madoobe ay halkaas ku laayeen labada dhinac ayaa kala sheeganaya guulo waaweyn oo ku aadan dagaalkii saaka magaalada Baydhabo ka dhacay waxaana weli soconaya dagaalka isla markaana qaybo magaalada Baydhabo kamid ah waxaa laga maqlayaa daryanka rasaasta iyo hub aad culus oo dhinacyada isu daarsanayaan war soo baxaya waxa ay tilmaamayaan oo dhinaca aadan madoobe ka soo baxaya in gudaha Baydhabo weli ay ku go'doonsan yihiin ciidamada daacad u ah garabka Cabdicasiis Laftigreen marka laga soo tagay meedada ay soo bandhigeen waxay sheegeen in maxaabiis nool gacanta ay ku dhigeen dhinaca Puntland wararka naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa ku waramaya in guud ahaanba gacan ku haynta magaaladaasi ay si buuxda ula wareegeen koonfurteeda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada sugaya amniga madaxweynaha Soomaaliya waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa ku wajahan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dhinaca markaasi koonfureed ee maamulka Galmudug waxaana si weyn markaasi socdaalkaasi uga dhiidiyay isla markaana qatar ugu tilmaamay maamulka Puntland ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa dhamaantood heegan sare la geliyay waxaana socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo iska soo horjeeda oo ka kala imaanaya dhinaca maamulka Puntland iyo sidoo kale maamulka Galmudug ciidamadiisa iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya labada dhinac ciidamadooda ayaa isweydaarsanaya hanjabaado kala duwan si lamid ah waxgaradka labada dhinac ee Galmudug iyo sidoo kale Puntland ayaa hawada isku marinayay warbaahinta hanjabaado markaasi ku aadan in labada dhinac mid kasta oo kamid ah oo dhinaca kale markaasi cagta marin doono maamulka Puntland waxa uu ku tilmaamay socdaalka Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Gaalkacyo mid khatar ku ah amniga iyo xasiloonida isla markaana loo baahan yahay in maamulka Galmudug ka waantoobo socdaalka madaxweynaha waqtigiisu uu dhamaaday dowladkaasi maadana uu markaasi uusan sameeynin wax abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo khatar ku ah amniga iyo xasiloonida maamulka Puntland waxay ka digtay talaabo kasta oo dhaqdhaqaaq ciidan ah oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu ka sameeyo dhinaca deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxay ka dhigan tahay in markaasi ay tahay talaabo dandaansi ah oo si adag markaasi uga jawaabi doonaan isla maamulka Puntland xiisada markaasi u dhaxaysa Siciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqata in markan xarka ay sii goosanayso iyada oo Siciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan gudaha magaalada Gaalkacyo uu kulan la yeeshay saraakiisha amniga ee maamulkaasi iyadoo loogu baaqay dhammaan saraakiisha amniga ee maamulkaasi inay u diyaar garoobaan dagaal kasta iyo sidoo kale duulaan kasta oo Xasan Sheekh Maxamuud uu mar kale ku soo qaado deegaanada dowlad goboleedka Puntland wararku waxa ay tilmaamayaan in dhammaan ciidamada kala duwan ee maamulka Puntland heegakii ugu sareeyay la geliyay waxaana Siciid Cabdullaahi Dani oo furay lamaha amniga in loo diyaar garoobo duulaan Xasan Sheekh Maxamuud hadii uu markaasi maamulka Puntland uu ku soo qaado
xasan sheekh maxamuud oo safar u ah magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ay dad badan markaasi socdaalkiisa ku tilmaameen inuu yahay mid khatar ku ah amniga iyo xasiloonida mandiqada isla markaana abuuri kara xiisad iyo sidoo kale colaad cusub oo ka dhex qaraxda maamulada Puntland iyo sidoo kale galmudug dhinaca kale ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee caasimada ku meelgaarka ayaa waxa ay ka hadleen dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo ilaa haatan markaasi laga maqlayo dhawaqa rasaasta gudaha magaalada Baydhabo ciidamada Itoobiya ku sugan gudaha Baydhabo waxa ay tilmaameen in dagaalada iyo sidoo kale weerarada gudaha Baydhabo ay yihiin kuwo khatar ku ah amniga iyo xasiloonida isla markaana abuuri kara marxalad cagtiran waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in maamulka hogaamiyaha Galmudug uu qaado tallaabo si degdeg ah wax looga qabanayo haddii kale ay iyagu markaasi qaadi doonaan tallaabooyin wax looga qabanayo amniga iyo sidoo kale xasiloonida ciidamada Itoobiya waxa ay sheegeen in aysan iyaga wax door ku lahayn dagaalada ka soconaya gudaha magaalada Baydhabo isla markaana aysan ku yeelan doonin dagaal kasta oo gudaha Baydhabo ka dhaca waxayna tilmaameen in loo baahan yahay in dhinacyada halkaasi ku loolamaya ay miiska wada hadal ka aadaan si xal looga gaaro khilaafka iyo sidoo kale dagaalada magaalada Baydhabo ayaa martigelinaysa dagaalo soo noqday iyo weerar ka imaanaya garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen kuwaas oo dadka magaalada Baydhabo ku nool ee shacabka ay ku tilmaameen mid markaasi cabsi walwal ku abuurtay wixii soo kordha tabinadeena xiga ayaad ku daawan doontaa